aqoontu maxay tartaa maanta 115 arday ayaa ka qalin jabiyay dufcaddii lixaad ee jaamacadda Golis maxaa looga baahan yahay oo laga sugayaa iyagu inay sameeyaan waxa looga baahan yahay inay bedelaan bulshada una bedelaan bulshadu inay ku fakarto hab waxbarasho iyo horumar oo ay ka gudubto marxaladaha ay joogaan ninka dhalinyarada ah sidiisaba waxa uu ka hadlaa oo ay xaq u leeyahay inuu ka hadlo mustaqbalkiisa waayo isagu ma laha waqti badan oo uu soo dhaafay oo uu ka sheekeeyo laakiin waxa looga baahan yahay inuu ka sheekeeyo mustaqbalkiisa odayga ayaa wuxuu ka sheekeeyaa taariikhdii uu soo dhaafay waayo odayga mustaqbal ma hadhin laakiin wuxuu ka sheekeeyaa wixii soo dhaafay haddaad ku mashquulshaan odaygu wuxuu soo dhaafo ka sheekeynayo waxaad ilaawaysaa mustaqbalkaagii aad u socotay ee aad higsanaysay ee aad doonaysay inaad gaadho maanta halkan idinka caraaran mayno laakiin waxa weeye waan idinla talinaynaa waxa weeye taladaan idin sheegaynaa waa inay aqoontu wax idinka beddeshaa markaad soo gaadho waad arkaysaa waxbarashada Somaliland maalintii waxa qalin jabiya kumanaanka kun ee qalin jabiyay haddii aynu IT iyo wada barano medical iyo aynu wada barano cilmi aynaan xafiisyada u haysan oo aynaan waxba u haynin waxaynu u noqonaysaa dhiigbax iyo waqti badan oo aynu iska luminay laakiin waxa loo baahan yahay qofku inuu aqoonta uu bartay haddii aanu markaa fursad u haynin inuu qabto aqoonta kale ee uu qaban karo ama waxa kale cilmiga kale ee loo baahan yahay ama hawsha kale ee loo baahan yahay anigu qurbaha markaan ka yimi dadka waxa jiray aqoonta ugu sareysa leh ayaa mar waxa dhacday in shaqo loo waayay dareewalo tagaasi iyo shaqaale caadi ah bay noqdeen cilmigii markii loo baahdayna way soo baxeen oo way yimaadeen marka inaynaan isku qalfilin anigu mutacallim baan ahay jaamacad soo dhameeyay ma qaban karo shaqada haddii aan shaqada kala qaban weydo baahidaadu weligaa way taagnaan doontaa waayo imika dhalinyaro tahay waqti baa kugu socda waxa jira mar aad qaban karto shaqo adag iyo mar aanad qaban karin shaqo adag marka waxa weeyaan carabtu waxay tiraahdaa intaad 20 jirkaaga intaad 60 jirkaaga dhabarka ka dhidi lahayd 20 jirkaaga dhafoorka ka dhidi oo macnaha loola jeedahay dhalinyaro tihiin baahiyaad badan baa gobolkiina yaala waxyaabo badan baa gobolkiina yaala waxa soo dhow waxa looga baahan yahay sidii aad uga saari lahaydeen idinka dhalinyaro u ah maanta population-ka Soomaaliland 460 waa dhalinyaro haddii aanu ka badnaynba waxa weeye rool badan baa ku leeyihiin hadday noqon lahayd hogaaminta dalka waayo inaad ka gudubtaan in odayaal meel inta idin fadhiistaan idin soo qorsheeyaan qofka dooran lahaydeen aan raaci lahaydeen waxa ka fiican idinku inaad ka fakartaan cidii idin hogaamin lahayd ee aad idigu hagi lahayd yoolka aad u socotaan haddaydan yool yeelan ma noqonaysaan uma sii jirtaa qofku waa inuu mustaqbal yeeshaa kuna xisaabtama mustaqbalkiisa inuu daba galo taasi waxa weeye waa dardaaran weeyaan waxa kale oo jira gobolka Bariyahan dambe waxa moodaa inay isku soo yaraan noqdeen hadallo la xiriira dad deegaanka jooga oo idin shaqaysan jiray ama idin la ganacsan jiray oo aan u taqaanaan aareen oo aan waqti u qabateen laascaarooda laga saaray dadka qaarkii la xalay waan dhex maray waxa weydiiyay waxay dhibaatadu tahay ama mushkiladu tahay ma amni darra jirta mise wax kala jira dadku waxay sheegeen in ay ka qaadeen shaqooyinkoodii iyo risqiga ay heli lahaayeen dadka taa ku fakaraya waxaan u sheegayaa risq ilaahay kuu qoray in aan cidina qaadan karin cidina la tagi karin ku biicab laakiin muhiimaddu waxay tahay iyagana waxa seegtay dadkii ay u yimaadeen ee ay ganacsiga ka sameeyeen inay shaqo abuur u sameeyaan oo ay sameeyaan inay dadkan jiheeyaan oo aanay isku koobin businesska kaligood idinna waxa idin seegtay waxa ay qabsadeen inaad qabsataan maantana waxaan idin sheegayaa haddaad go'aansateen inay iga baxaan iyo haddaad go'aansateen inay joogaanba masiirkiinu gacantiinu ku jiraa laakiin go'aanka aad qaadanaysaan inuu ahaado mid aan ku salaysnayn cadiifad gobol baa laga saaray cid kale sool iyo sanaag isku duruuf ma aha isku duruufna ma tihidin
xaaladiinuna isku meel ma aha marka bini'aadanka waxa weeyaan qofka bini'aadanka qofka maganta waa inuu ilaaliyaa oo uu ka fekeraa anigu waxaan soo maray qurba joog baan ahaa qurbahaan soo maray dadka nolosha ka dhacay ee caddaanka ah waxay oran jireen ajnabigu waxay qaateen shaqooyinkaygii oo waxay ka fekeri jireen qofka ajnabiga ku soo kordhay ama inuu guri ka qaatay ama inuu wax ka qaatay marka maanta waxaan idinla dardaarmayaa si aydan ugu fekerin sida dadka xumi u fekeraan ka noocaas waxaan oran jirnay ninkaasi waa rasiist ha noqonina dad rasiis ah oo dadka kala saara oo dadka kala foqowga ee waxaad noqotaan dad u fekera sida qofka bini'aadanka ah ee muslimka ah ee maskaxda wanaagsan u fekero taas ayaan idinku talinayaa anigu waalidiintii iyo macallimiinta iyagana waxaan leeyahay waxa weeye dadaal baad samayseen waxa aad geliseen ardayda ilaahay waxaan uga baryaa inuu wax khayr qaba idinka soo saaro iyaguna ay noqdaan kuwa anfaca ummadan ay u soo baxeen ee maanta annagana nagu kaliftay inaanu uga nimaadno Hargeysa annagoo eegayna ardayda maanta qalin jabinaysa waxa hore uga dhacday jaamacaddii Sanaag oo qalin jabisay jaamacadda waqti baan u heli kari weynay waana naga raali ahaanayaan apologize kana waan u soo diraynaa kuwana waan la soo qayb galnay insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo dadkii dhamaantood waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad u mahadsanyihiin xildhibaanku waa gabagabo waxaa noo soo xidhayaa